ganacsatada kalluunka ayaa kordhiyay qiimihii ay hore u siin jireen kalluunkaasi iyadoona guud ahaan kor u kaca qiimahaasi laga dareemay suuqyada magaalada Muqdisho. wariyahayaga Aways Maxamuud Jilaco ayaa warkani magaalada Muqdisho nooga soo diray. dabaylo saa'id ah iyo isbedel cimilada dhanka badda ah ayaa keentay in isbedel laga dareemo qiimaha suuqyada Muqdisho lagu kala iibsado kalluunka. xilligu waa barqo waana waqtiga ugu badan oo dhinaca wax soo saarka badda dhalinyaradu ku dhiiradaan. maanta nooma muuqan kalluumaysato ku dhiiran kartay in si fudud ay badda u galaan jawiga badda oo kacsan awgeed. halkan waa kawaan lagu iibiyo malaayga oo ku yaala degmada Xamarweyne. maraan booqanay waxaan kula kulanay qaar ka mid ah ganacsatada iibisa malaayga waxayna sharaxayaan sare u kac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado suuqyada Muqdisho kalluunka. malaay qaali way yumbi kiiladiisu waxaan ka dhigtaa $10 jeer kiiladiisu waxaan ka dhigtaa $7 kiiladiisu waxaan ka dhigtaa $5 yumbi waxaan ka dhigtaa jeer $4 baan ka dhigtaa laakiin hadda badda kacsan hal xabo ama laba xabo la soo saaraya halkii ama labadii $2 $3 ama la geeyo marka milyoonkeeni ma sha Allah waan ka helnaa xiliga wallahi dara ayaa jirta qaali way malaay badii waa kacsan tahay qiimaha aan ka hadlayno maanta $10 kiilada geeyna markuu buuxin $4 $5 ayaa geeyna sarkacaad aad u sarkacsiya malaay waayo malaay la'aan malaay weytada malaay waa qaaliyo marka malaay haddaba sidee buu ahaa waayihii ugu dambeeyay wax soo saarka kalluumaysatada xeebaha Muqdisho waa kan Cabduqaadir Qaasim Macow oo sharaxaya. wax soo saarka oo badda meelaha waa maalin istii waa soo ilaahay oo noo qadirayo wax u helna maalin oo badiya maalin oo istiiriya marka maanta ma sha Allah alxamdulillah waa moolina waxa khasaaraa ma malay miis maanta macna kiilad waxa maraa mid maanta wuxuu markaa India 140 qiimaha shilin Soomaaliya. dalka Soomaaliya oo lagu tiriyo wadamada ugu kheyraadka badan dhinaca badda ayaa haddana dadka Soomaaliyeed badankood aysan ahayn kuwa ka faa'iideysta kheyraadka uu eeba ku maneystay. waxaase jira hay'ado iyo wadamo shisheeye oo siyaabo sharci darro ah ugu kalluumaysta xeebaha dalka Soomaaliya. Aways Maxamuud Jilaco, Royal TV, Muqdisho.